xabaddu anuu markay igu dhacayso dadku waxay isleeyihiin bilaal ma dagaalamay wax muu sameeyey qofka muu arkay maya anigu meeshaan fadhiyey waa sii jeeday xabaddu sida igu dhacday ogaal lama sii fadhine toosaan dhulka ugu dhacay toos markaa dhulka ugu dhacay waxyaabaha cajiibka leh ee aan ka xasuusta waxaa ka mid ahayd xoogaa ogaalkayga wuu maqnaa anigu maan ogeyn mar allaala markii aan xoogaa aan mantagay dhiig iyo cuntadii aan soo cuna aan mantagay baa gabar isoo dul istaagtay oo ashahaadkii ii qabatay ashahaadkiiaan qabsaday markii hore wax awooda maan lahayn awoodaan yeeshay ilaaha awood leh awoodaan yeeshay oo aan ku hadli karo ashahaadkiiaan qabsaday ashahaadkii markaan qabsaday waan soo fariistay maanan dhihin dadow ibadbaadiya maanan dhihin hallay badbaadiyo waxaan afkayga ku qabsaday ashahaadka iyo ilaahayow ibadbaadi waan fariistay gabadhii ay soo dul istaagtay kumanaan kun oo qofood waa idul taagneed ma arkeyna ilaa gabadhaas mooyey gabadh fanax leh xijaab weyn wadato oo wejigeeda nuurka baxaayo oo ashahaadka uun afka igu hayso bilaal ashahaado ashhadu an laa ilaaha illa wa ashhadu anna maxamed rasuul afka igu qabatay almuhim ashahaadkii marka afku qabsada oo awooddii oo ilaahay isiiyey oo isoo fariisiyey oo aan gabadhii aan arkay oo laysoo qaaday laysoo dhaqaajiyey mar allaala markii aan isbitaalka aan imiday dadka inta badan waxay leeyihin bilaal muu hadlo dhaqaatiirta iga codsatay inaan hadalka aanan badinin maadaama xabaddu ay iga martay dhuunta dhexdeeda ay martay alxamdulilah dhammaan dadka i daawana waa u mahadcelinayaa dadka iisoo duceyna waxaan leeyahay jasaakallahu khayr ducadiina ayaan maanta aan intaan kusoo gaaray dadka wax iisoo dirayna waxaan leeyahay jasaakallahu khayra jazaa waad mahadsantihiin meeshaad kasoo qaadeenna khayr allah idinku bedelo weli waa idiin baahanahay intaan keliya maaha qofkii aanan awoodin inuu gift inta iibiyo meeshaan kusoo diro wuxuu awoodaa linkeyga profilkeyga saaray inuu ku dhufto uu GoFundRaising-ka oo wax ku diro haddii GoFundRaising-ka oo wax ku diri karina qaybaha hoose ayuu ka heli karaa nambarkeyga iyo akoomadeyda hadduu Soomaaliya joogo halkaasuna wax igu soo diri karaa insha Allah ceeb maaha inaan Soomaali inta soo hor istaago aan wax weydiisto waxaa ka ceeb badan inaan aan dayacan meel ilaah ayaa nagu badbaadiyey ilaah ayaana sababay in ay mucjisadaas ay dhacdo alxamdulillah calaa kulli xaal waxaan rajeynayaa insha Allah anigu waa ku cimri qaatay waxaan rajeynayaa saaxiibada i daawanaya ayaguna inay ku cimri qaataan ay ilaahayna ay u dhawaadaan hadduu alleedo xabaddu anuu markay igu dhacayso dadku waxay isleeyihiin bilaal ma dagaalamay wax muu sameeyey qofka muu arkay maya anigu meeshaan fadhiyey waa sii jeeday xabaddu sida igu dhacday ogaal lama sii fadhine toosaan dhulka ugu dhacay toos markaa dhulka ugu dhacay waxyaabaha cajiibka leh ee aan ka xasuusta waxaa ka mid ahayd dadka kugu dhuftay soo laba xab ma xabadaha kugu dhacay midna way iga dhex baxday oo dhuunta dhinacay iga soo gashay dhigta hoosteeda ka baxday midna waxay iga sartay xagga dambe ee madaxa okay dadka xabadda kugu dhuftay ma aragta adiga ishaada ma saartay may indhahayga ma saarin anuu sii jeeda la itoogtay okay insha Allah dadkaas dhibaatada kugu geystay ilaahay agtiisaad ku xisaabtamayseen haddii la aqoodana insha Allah adduunyada looga jarayaa ciqaabta ay u qalmaan ay ku helayaan nacam xabaddu anuu markay igu dhacayso dadku waxay isleeyihiin bilaal ma dagaalamay wax muu sameeyey qofka muu arkay maya anigu meeshaan fadhiyey waa sii jeeday xabaddu sida igu dhacday ogaal lama sii fadhine toosaan dhulka ugu dhacay toos markaa dhulka ugu dhacay waxyaabaha cajiibka leh ee aan ka xasuusta waxaa ka mid ahayd xoogaa ogaalkayga wuu maqnaa anigu maan ogeyn mar allaala markii aan xoogaa aan mantagay dhiig iyo cuntadii aan soo cuna aan mantagay baa gabar isoo dul istaagtay oo ashahaadada
ashahaadkii ii qabatay ashahaadkiiaan qabsaday markii hore wax awooda maan lahayn awoodaan yeeshay ilaaha awood leh awoodaan yeeshay oo aan ku hadli karo ashahaadkiiaan qabsaday ashahaadkii markaan qabsaday waan soo fariistay maanan dhihin dadow i badbaadiya maanan dhihin hallay badbaadiyo waxaan afkayga ku qabsaday ashahaadka iyo ilaahayow i badbaadi waan fariistay gabadhii ay soo dul istaagtay kumanaan kun oo qofood waa i dul taagneed ma arkeyna ilaa gabadhaas mooye gabadh fanax leh xijaab weyn wadato oo wejigeeda nuurka baxaayo oo ashahaadka uun afka igu hayso bilaal ashahaado ashhadu an laa ilaaha illa wa ashhadu anna maxamed rasuul afka igu qabatay almuhim ashahaadkii marka afku qabsada oo awooddii oo ilaahay isiiyey oo isoo fariisiiyey oo aan gabadhii aan arkay oo laysoo qaaday laysoo dhaqaajiyey mar allaala markii aan isbitaalka aan imiday dadku inta badan waxay leeyihin bilaal muu hadlo dhaqaatiirta iga codsatay inaan hadalka aanan badinin maadaama xabaddu ay iga martay dhuunta dhexdeeda ay martay alxamdulilah dhammaan dadka i daawana waa u mahadcelinayaa dadka iisoo duceyna waxaan leeyahay jasaakallahu khayr ducadiina ayaan maanta aan intaan kusoo gaaray dadka wax iisoo dirayna waxaan leeyahay jasaakallahu khayra jazaa waad mahadsantihiin meeshaad kasoo qaadeenna khayr allah idinku bedelo weli waa idiin baahanahay intaan keliya maaha qofkii aanan awoodin inuu gift inta iibiyo meeshaan kusoo diro wuxuu awoodaa linkiga profilkayga saar inuu ku dhufto uu GoFundRising-ka oo wax ku diro haddii GoFundRising-ka oo wax ku diri karina qeybaha hoose ayuu ka heli karaa nambarkayga iyo akoomadeyda hadduu Soomaaliya joogo halkaasuna wax igu soo diri karaa insha Allah ceeb maaha inaan Soomaali inta soo hor istaago aan wax weydiisto waxaa ka ceeb badan inaan dayacan meel ilaah ayaa nagu badbaadiyey ilaah ayaana sababay in ay mucjisadaas ay dhacdo alxamdulilah calaa kulli xaal waxaan rajeynayaa insha Allah anigu waa ku cimri qaatay waxaan rajeynayaa saaxiibada i daawanaya ayaguna inay ku cimri qaataan ay ilaahayna ay u dhowaadaan hadduu alle xabaddu anuu markay igu dhacayso dadku waxay isleeyihiin bilaal ma dagaalamay wax muu sameeyey qofku muu arkay maya anigu meeshaan fadhiyey waa sii jeeday xabaddu sida igu dhacday ogaal lama sii fadhine toosaan dhulka ugu dhacay toos markaan dhulka ugu dhacay waxyaabaha cajiibka leh ee aan ka xasuusta waxaa ka mid ahayd dadka kugu dhuftay soo laba xab ma xabadaha kugu dhacay midna way iga dhex baxday oo dhuunta dhinacay iga soo gashay dhigta hoosteeda ka baxday midna waxay iga sartay xagga dambe ee madaxa okay dadka xabadda kugu dhuftay ma aragta adiga ishaada ma saartay may indhahayga ma saarin anuu sii jeeda la itoogta okay insha Allah dadkaas dhibaatada kugu geystay ilaahay agtiisaad ku xisaabtamayseen haddii la aqoodana insha Allah adduunyada looga jarayaa ciqaabta ay u qalmaan ay ku helayaan nacam